Asalaamu calaykum Jimco wanaagsan. Warbixintan xiisaha leh waxaan ku qaadaa dhigi doonaa dayax-gacmeedka oo muujinaya sida ay Israa'iil u burburisay xaruntii nukliyeerka Iiraan ee Natanz. Iiraan oo kicisay diyaaradaheeda dagaalka, sidoo kalena diyaarsatay gantaaladeedii balaastika iyo kuruuska. Sidoo kale waxaad ku maqli doontaan maxay ka dhaheen falanqeeyaasha arrimaha militariga soo daahidda jawaabta Iiraan iyo weerar cusub oo ay Israa'iil ku qaaday xarunta Natanz ee lagu sifeeyo uraniumka. Waxaana la soo sheegayaa in gudaha xarunta lagu arkay shucaac. Waxaa idiin soo jeedin doona anigoo ah Bashiir Cadow, balse intaan u gudagalin faahfaahinta hadday tahay markaa kugu horreysay aad soo booqatid subscribe saaro janalka gambaleelkana furo si ay kuu soo gaaraan wararka iyo warbixinada xiisaha leh ee aan halkan kusoo gudbinno. Mahadsanidin. Haddaan ku bilaawno, sawiradan waxaa lagu qaaday dayax-gacmeedka. Waxaa baahiyey qaar ka mid ah warbaahinta Cibraaniga. Waa xarunta nukliyeerka Iiraan ee Natanz. Kadib duqeyntii isxigtay ee ay la beegsadeen diyaaradaha dagaalka gumeystaha Israa'iil saacadihii lasoo dhaafay. Sidaad aragtaan, waxaa ka muuqda dadka gubashadii ka dhalatay duqeymaha Israa'iil la beegsatay iyo inta uu gaarsiisan yahay xajmiga burburka gaaray. Sidaan soo sheegnay, sawiradan waxaa saacadihii lasoo dhaafay aad loogu baahiyey baraha bulshada iyo warbaahinta Cibraaniga. Waxaad arki kartaa in ay burbureen dhowr dhismooyin oo ku yaal xaruntan dhexdeeda. Dabcan, sidaan warbixinadeenii hore kusoo sheegnay, goobaha lagu bacrimiyo uraniumka Iiraan waxay ku yaalaan gunta hoose ee buurta Natanz, waxayna qodan yihiin ilaa 804 mitir, taasoo mustaxiil ka dhigaysa inay gaaraan bambooyinka iyo gantaalada Israa'iil iyo Mareykanka. Dhinaca kale, marka laga yimaado weerarada isxigxigay ay Israa'iil ku qaaday Iiraan, xisaabta dagaalka weli lama xirin, argudashadiina weli ma bilaaban. Iiraan waxay Israa'iil ugu goodinaysaa ciqaab culus, waxayna isku diyaarinaysaa argudasho xanuun badan. Wararkii ugu dambeeyey ayaa sheegaya in Iiraan ay kicisay qaar ka mid ah diyaaradaheeda dagaalka, sidoo kalena ay diyaarisay gantaaladeeda balaastika iyo kuruuska si ay qayb ugu noqdaan howlgalka argudashada. Sidoo kale, wararka laga helayo gudaha Tehraan waxay sheegayaan in Iiraan ay isku duba ridayso kooxaheeda xulafada la ah ee ku sugan gobolka, sida Xuutiyiinta Yemen, Xisbullaahida Lubnaan iyo kuwa Ciraaq, si ay hal mar u fuliyaan weerar argudasho ah oo ka dhan ah Israa'iil. Geesta kale, war soo baxay wax yar ka hor ayaa sheegaya weerar cusub oo ay Israa'iil ku qaaday xarunta Natanz ee sifeysa uraniumka, waxaana gudaha xarunta laga dareemay shucaaca wasaqda nukliyeerka. Telefishinka rasmiga ah ee Iiraan ayaa xaqiijiyey in gudaha xarunta laga dareemay shucaac ka dhashay maadooyinka kiimikada ah ee ku jiray gudaha xaruntan ee ay duqeeyeen diyaaradaha dagaalka Israa'iil. Afhayeenka hay'adda tamarta nukliyeerka ee Iiraan, Behrouz Kamalfandi, ayaa ku sheegay war uu siiyey warbaahinta Iiraan in gudaha xarunta laga dareemay shucaaca kiimikada, balse kuma faafin dibadda xarunta. Sidaas darteed, ma jirto sabab loo walwalo. Kamalfandi wuxuu xusay in xarunta Natanz ee sifeysa uraniumka ay la kulantay weeraro gantaalo ah oo badan, isagoo intaas ku daray waa in lagu sameeyaa howlo nadiifin ah gudaha xarunta, kadibna la qiimeeyaa khasaarihii dhacay. Maxay u daahday jawaabta Iiraan? Falanqeeyaha arrimaha militariga General Al-Falaaxi oo telefishinka Al Jazeera wareysi gaar ah siinayay ayaa mar uu ka jawaabayay sababta ay jawaabta Tehraan u soo daahday wuxuu sheegay in Israa'iil aysan jaanis siinin Iiraan oo weerarkii ay xalay saqdi dhexe ku bilowday weli ku wado, iyadoo ka dishay saraakiishii iyo generaaladii ugu muhiimsanaa ilaalada kacaanka Iiraan. Taasna ay dib u dhigayso in Tehraan ay si dhaqso ah dib isku soo abaabusho si ay u qaado weerar argudasho ah. Wuxuu kaloo sababta ku sheegay in Israa'iil ay beegsatay xarumihii taliska iyo hoggaanka ilaalada kacaanka iyo nidaamyadii difaaca hawada. Wuxuu kaloo leeyahay in weerarka lagaga hormaro inta badan ay ciidamada u isticmaalaan inay garaacaan oo ay burburiyaan kaabayaasha militariga ee ugu muhiimsan cadowga si aysan u samaynin weerar rogaal celis ah. Taasna ay tahay waxay Israa'iil ka faa'iidaystay, Iiraanna dib u dhigay inay jawaab degdeg ah bixiso. Dhinaca kale, wargeyska Mareykanka ee New York Times oo soo xiganaya ilo Iiraan ka tirsan ayaa daabacay in Israa'iil sidoo kale ay dishay Ismaaciil Qaani, taliyihii ciidanka Qudus ee ka tirsan ilaalada kacaanka Iiraan. Warbixintu waxay sheegtay in dilka Qaani uu ka mid noqday hogaamiyaashii waaweyn ee lagu dilay weerarada lama filaanka ah ee militari ay Israa'iil ku qaaday gudaha Tehraan.